tan iyo markii lagu dhawaaqay talaadadii aanu soo dhaafnay natiijada imtixaanaadka qaranka ee iskuulada hoose dhexe ee dalkani Kenya ee KCPE-da waxaa buundooyin fiican ka keenay imtixaankaasi qaar ka mid ah ardayda Soomaalida ee ku nool gobolka Waqooyi Bari Kenya. Maxamed Aadan oo ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada hoose dhexe ee xariyaha Qaxootiga Dhadhaab waxa uu ka mid yahay ardayda kaalimaha fiican ka keentay imtixaankaasi. Waa kan Maxamed oo ugu warbixiyay dareenkiisa TV-ga caalamiga ee KGS Channel. waxaan kaloo zaid ugu faraxsanahay oo mahadcelin u bixinayaa ilaahay marka hore inta ka soo waxaan mahadcelin u bixinayaa macallimiintii ugu soo deeshay oo waxa weeye karan ugu weyn aad iyo aad wax ka badan aan filayo waxaan rajeynayaa inaan keeno 418 wax ka sii badan waxaan rajeynayaa wali inaan gaaro 450 ilaa wax meelaha maksa ugu koray laakiin hadda xataa inta ma yariisin aan ku faraxsanahay helo ماكس الله يبلا زايد آدي بانو فرحي فرحت أنا كان لوكو كنا فرحي دال وان سمين جري لكن أريمان بدنا أسكت الصدق وإها إن وإحنا وآخرين جري وقتي قار كمل وقتي وحن قارين جري حافظة إن ماما عامين جري هواي عامين جري اختيال كمل ده مركي واحد يسو لبعض يسو صار مثلا معلمين تعرف يكنسل عن قيدنا ودون جري أيان كيل جري مركي واحد يقول عام أنت كلنا مرنا وإحنا وآخرين جري dhanka kale waxaa faahfaahin dheer naga siiyay maamulaha ardaygani waxa uuna sheegay in ay caqabado badan ay haysato ardayda wax ka barata iskuulada xariyaha Qaxootiga Dhadhaab aan deganahay xaqiiqatan markii la joogo xiraq xunti ah caqabadka ay yeelan karto waxbarashada sida gaarka ah waliba loo maamulayo wax fara badan si gooni loo soo koobi karo laakiin waxyaaba ugu badan waxa kamid ah meesha lagu nooleeyo xiraq xunti adeegi iyo service-kii loo baahnaa ee waxbarasho ma wada dhameystirna moralka iyo niyadii loo baahnaa sidii laga rabay ma ahan ubadku waxay aaminsan yihiin inay qaxoonti yihiin waalidku waxay aaminsan yihiin in maalin ay halkan ka laabanayaan marka niyadda bulshada qaxoontiga ku nool oon deganeyn waxay ka mid tahay caqabadka jira waxaa kaloo ka mid ah caqabadka ubadka qaxoontiga ku nool ma haystaan agabka waxbarasho loogu talagalay si looga baahnaa uma helaan qaarkood waxaa laga yaabaa nolol maalmeedka inuu ku adkaado iyo sida ay wax baran lahaayeen waa midda keenta annaga inta badan aan xil iska saarno in aan caruurta danyarta ah ee qoysaska aan waxba haysan ka soo jeeda aad la iskugu mashquulay in wax la baro xaqiiqatan canugan hadda aan ka hadlayno baroonka galay aabiis iyo waalidkiisuna wax badan ma haystaan haddana wuxuu suurto geliyay inuu noqdo ardayga ugu fiican aagan wuxuuna u qalmi doonaa inuu helo waxbarasho qaran oo ay dawladdu siiso oo 4 sano soo socota ah waa farxad weyn si kastaba ha ahaatee tan iyo markii ay bilaawatay dib u noqoshada dadka qaxootiga ayaa hoos u dhac weyn ku yimid waxbarashadii ay ka heli jireen ardayda hay'adaha samafalka ka howlgala xariyaha Qaxootiga Dhadhaab. Idris Maxamed Xasan Idris Saafiya, telefishinka KGS Channel, xariyaha Dhadhaab.